hawl badan baa ina sugaysa ya hadda ayda Soomaaliya galeena imika Soomaaliga baan galeynaa marka waxaad arki doontiin inuu Soomaaligu adag yahay baa idin muuqan doonto marka insha Allah inta waxay ka taagan tahay halkan aniga isku bilaabay moogta markay tahay aan sidii u bilowno aniga aniga inaga may say badan yihiin inaga ya inaga waa laba in moogta aniga maya inaga waa laba in inaga weeyaan aniga inaga mid kale jirta iyaduna ama inaga baad oran ama anaga labadaba anaga maya farq baa u dhaxeeya haddaan idhaahdo inaga imikaaniya shamsa oo kale anu shamsaan la hadlayaa waxaan ku leeyahay inaga waxay noo fiican inaan guriga ku jirno inaga iyadaan la hadlayaa laakiin markaan adiga kula hadlaya waxaan odhanayaa shamse iyo aniga soo maha annaga waxaa noo fiican inaan gurigan deganaano ya mar kalean kugu soo celinayaa haddaan idhaahdo markaan leeyahay inaga adigu kuma jirtid waad naga baxsan tahay qof nagu jiraa ma jiro markaan leeyahay inaga waxay noo roon inaan gurigan ku noolaano shamsooy naguma jirtiin idinku haye ma nagu jiraysaa inaga intayna halkan fadhido oo dhan waxay noo fiican inaan gurigan ku jirno inaga dama inagadu waa tan badan haddaan si qalada u idhi annagadu waa tan sokay annaga oo aniga shamso laakiin inaga waan isku jirnaa ya aan ku soo celiyo mar labaad haddaan idhaahdo gaasire yaa ina kala guraya inaga waa inaga ma inagu waa markaan badan nahay isku jirno laakiin annaga waad ka baxsantahay adugu haddaan halkas istaago aniga abtodan ba halkan joognaa haddaan idhaahdo annagu haddaan reer muqdisho nahay saasaa noo fiican oo kale annagu adigaan kula hadlaya naguma jirti markaa laakiin haddaan isku jirno inagu haddaynu reer muqdisho nahay saasaa inoo dana inagu waa dhammaanteen soo ko sax maa ay halkana aldana waxay noqon adiga soo ma markay keli tahay adiga markuu badan yahay maxay noqon idinka markaad badantihiin idinka ya labadaasuna way israacsan yihiin adiga idinka haddana halkan maxaa isaga iyo iyada markay badan yihiin maxay noqonayaan iyaga ya kow laba saddex afar shan lix toddoba tan un baa laba noqonaysa waa sideed laakiin sida caadiga waa toddobadaasun afafkao dhan waa saas laakiin inaga waxbaan dheerna waad iga arkaya ka gedsanah carabigu waa naxnu bes naxnu ana iyo naxnu bes laakiin halkan inagu waxaan dheernahay waxbaan dheernahay afafkii kale haddaad sidaa markaad is-agdhigiddu waxay ku fiican tahay afkaagii hooyaad si fiican u baranaysaa
wadafiif kale markaad ag dhigayso waxaad ka gedsan tahay iyo waxaad dheer tahay iyo waxaad ka yar tahay iyo halka kaaga soo baxaysa haddaba maxaan idhahnaa markaa anigu halkaana dhib kale ay nagu soo socotaa waxaan isticmaalaa intaba anigu waxa baan odhan mogta anigu waxa maya waxaad caada iska ato laakiin ta kalaan bedeli doonaa anigu waxa tan waxa baan ku daranaa waqti walba mogta waxa adiga idinku waxa kana soconaysaa waxa isagu waxa waa wada waxa mogta waxbaa laakiin hadhow dhib ay nagu soo socotay iyadu waxa waan kaa way canabti doon mar dhow iyadu waxa halkan maxaa idhi iyagu iyaga halkan kale iyagu baan odhan iyagu waa markay falka tahay taa waan soo jeedsanaa hadhow ku noqon doonaa markay aniga iyo markay anigu noqonayso markay inaga iyo inagu usoo noqon doonaa taa iyo uda waan usoo noqon doonaa macno kale samayn doontaa taasi siduu afku u adag yahay soomaaligu ay ku tusisaa halkana waxa haddaba dhibtu waxay ka taagan tahay meel halkana waxaan odhan anigu waxa aan baan odhan haddaan anu iska hadlayo aan adigu waxa aad way isbedeshay balaag ya halkan joogay maya ma inagu waxa aynuba ka wadatan sorry ilaan waa markaan badnayd inagu ama inaga markaa inagu bay noqon moogtahay markaan hadalka samaynayo markaan wax samayska galayno malaa in halkaa ku yar noqonaa wanaagsan intaynaan qorin markani waa marka iska caadiga tahay laakiin marka waxaan wixii aad samaysay adigu waxaad noqon anigu bay noqon inagu adigu idinku isagu iyadu iyagu marka waxay noqon wada u bay noqon ya halka imka aad meel alla meesha aad oo dhan u bedel markaan sentence ka dhis markaan adigu wada bedelina adigu idinku isagu iyadu adoon iloobintii kalena iyadu may markaad wax samaynayso eed adigu waan idinka dhaadhicin doonaa subject waxa la yidhaha subject markay noqonayso uu isku rogi anigu inagu anagu waxa weeyaan hadhow baan idiin sheegi doona subject iyo object iyo wax markaan galayno subject iyo object iyo markaad ka wax samaynaya iyo ka wax lagu sameeyey hadhow baan geli doonaa laakiin imika intaan aan isdhaafino inagu ama anagu waxa inagu waxa aynu way halka noqon aynu adigu waxa aad bay noqon adigu waxa aad idinku waxa aydin Soomaaliga waa sida saxda ahaa waan kaaga bixi doonaa idinku waxa aydin isagu waxa uu way noqon waxa uu haye iyadu waxa ay bay noqon halkani Soomaa iyadu waxa ay iyagu waxa ay bay halkaasna noqon iyagu waxa ay kaasna waa ay marka wayna dhamaystirnaa maxaa marka anigu waxa aan jecelahay ama anigu waxa aan ma tan oo kale yani waxaan tii iskuulka kale ama waxa doontaa wax kale aan qaadan karnaa anigu waxa aan rabaa in aan tago moogtay anigu waxa aan rabaa ama doonayaa rabaa in anigu waxa aan rabaa ya in aan
tego tego iskuulka ama wuxuun inagu waxa aynu rabnaa halkan is isku bedelaysaa waxa isbedelaya isla eegi doonaa rabnaa ya inagu waxa aynu rabnaa in in aynu tegno yadna isbedeshay tegno haddaba leeg wax isbedelay bal inta isbedel meesha ka dhacaysa waxay ka dhacaysaa halkan isbedel waxay ka dhacaysaa halkan rabaa bay ahayd rabnaa bay noqotay halkani laba jeer ba aynu soo noqonaysaa moogtahay dadka Soomaalidu markay si degdeg u hadlayaan waxay yiraahdeen midalan anigu waxaan rabaa hadalka anigu waxaan rabaa inaan oo isku darantana inaan laakiin sida saxda markaad qorayso waa sida weynta kala goysaa صح markaad hadlayso waa degdeg iska degdeg lima leh wala isfahmayaa hadalku waa caadi laakiin markaad waxa buu ku qorayso waa inaad sida saxda u barata waa in kala googoodan haye markaa adigu waxa aad halkan maxay noqon adigu waxa aad he rabta oka shams rabta in aad diba soo noqonaysa hadana in aad way isbedelaysaa tan markay tago iyo tagno waxaad rabtaa in aad tegto to way isbedesho marka tego tegno tegto halkan rabaa rabnaa rabtaa waxbaa isbedelaya isbedel cajiiba hadduu qof ajnabi af Soomaaliga baranayo waa dhibaato meeran marka inagu afka nooshkiisa uma si adko marka keena loo eego meelaha qaar kood kulay xaga marsal falko kale iyo halkan aan wadno adigu waxa waan irtaas idinku waxa aydin rabtiin inta badan rabtiin bay u badan tahay ama Soomaalidu rabtaana qaar way yiraahdaan ya idinku waxa aad rabtiin in aydin hadana in aydin tegtiin soma tegtiin ama tagtaan laakiin haddaan tegta qaadano antaa ku wadno tegtiin ya dhimale waa isugu soo noqon karaa taa tagtaan iyo tegtiin saa doonta dhe meesha isbedel baa jira uun يعني ما يعني إنك فعلكي ويسبدليا ما هي لبضن ويسبدليا يدنكها مركا إسقو وحا أو ربا باي نقطة مارك وحلم مدي هسه تانو كله ربا أنا قاعد يقول من نقطة إسقو ربا إن أو تجو inuu tago iyadu waxay rabtaa iyadu waxa ay rabtaa in ay waan ka weecan doonaa markaan in ay tegto caruurta waxna ugu dhib bay ku tahay moogtahay waan jilcin doonaa hadhow idinku waa weyn fahma hadhowna caruurtiina idinka bari doona hooyinka waxa la baro si caruurtooda wax u baraan shamsahay هاي كوكو صدق أنت كاتب الفابت مقالا أيه وان ودقنا مرك الماء وإني نجاهران أيه ها واي هذا الفابت وان شاقنا أنت يريس بدل هذا مرك الويل غرف وأدي ما تخان ما هو فكرة فعلا أم بإنجليش لو وإني أفكر هويو الفابت كو يكو قاتل وان سمعنا وان سمعنا أيوة وإني نجاهران وان سمعنا هذا دون بريتو هذا دون مدة 20 مليون إيه الفابتك سومالي ها وأنت دوا وراي في عون الفابت كان هو الفابت كنا الفابت مقرن